dul qaadan jiray markuu qofku hay jaamacaduna mid habaar qabto duhur kala tagay hay waxay hay u xidhay markaa maalin maalmaha kamid ah inankii casharo kaas ku celintaa kasoo habsaamay casharkii inankii markuu kasoo habsaamay ayaa la celiyey hay qisadan markaa ninkay ku dhacday baa uga sheekeynaya hay kalaaskii baa laga celiyey kalaaskii markii laga celiyey ayaa lagu yiri no iska noqo maanta saasaad eris ku tahay jaamacadda xiisadaad u timo dhan maanta ma gelisid bartaa ka noqo hay wuxuu inankii markuu noqday maxay ahayd uu jaamacadda horteeda iska fadhiistay xogaada markuu halkii ka caliyuubay anaguna kama soo daba bixi karayna dee waxba kuma odhan karno daaqadan kasoo eegayna inankii halkii waxoogaa cadceedii yara fadhiyay buu iska noqday kadibna isagoo iska kacaya ayuu nin kaloo macalin arko markaasuu ku yiri anaa macalinka kaala hadlaya kalaaskiisu waa 2 saacadood intay 2 saacadood dhamaanayaan meelahan iska joog anaa macalimiinta kala kaala hadli doonay kadibna waxa ku dhacday inankii haye buu yiri haye isagoo iri oo waqtigii iska luminayo jaamacadda iska hormarmaraya ayaa bahalino fahimay in Leila la soo martay meesha magaca uu bixiyay magaceeda ma garanay hay nin gaari wadata oo maad aragtay dee qof ilaahay wuxuu dhiibay u eeg oo qurux badan sidii la sheegay ayaa soo martay jaamacadii kadibna inankii bay salaantay inankii markay salaantay منتي موديga soo galay maxaa soo galay منتي modiga soo galay ma maqlaysaan mobilkayga ay kula bilaada weeyaan day ma soo qaraceen codkayga weyn saaka dulqaat kadibna waxa ku dhacay inantii dama inankii markay isa salaameen inantu markaa inankii waxay ku tiri waa maxaad han ka qabanaysaa wacdeed kula ileh wuxuu ku walaal macalin bay soo eriyo xafadeedina kuma noqon karo oo aad bay ugu fogtahay marka waqtigan halkan iska galuminay waxa ku tiri suuqan alaab ka doonanayaa kaala aniga waqtigii la soo dilba hay wallahi inankii de uu raacay inantu markaa suuqa alaab ka dooranay hay suuqii alaab inantu ka doonanaysay suuqii baa la isku raacay suuqii markii la isku raacay alaab inantu soo iibsatay alaabtii buu la soo caawiyey markaa waxaan u malaynaya inuu igu yiri rabadaan baa soo gelisay markaa reeruhu wad aragtay waa la soo adeegtaa dee wax walba cunto kasta waa la soo dhigtaa guriga raashin weel wax kasta markaa wuxuu yiri dee waaban dee inantu wana caawiyo alaabtii baan gaariga kula soo gurayo waka oo duif iyo daran yaa ka muuqato waxay inankii markaa wuxuu yiri inantii markan hawshii la soo dhameeyay dee saacadii waxaasi ma saacadii way dhamaatay be haddana ay tiri waxbaan meelaan ka cunaynaa waqtigii bay dee way habsaamisay inankii cuntadii bay meelaan ka cunay waa inan gaajoonay ma garanaysaa qofku waa qof gaajoonay cuntada meelaan laga cunaya hay buu yiri waan cunaynaa iska cunay cuntadii kadibna waxay ku tiri maanta niyow dee wada habsaanta waa aniga ku habsaamiyey iska raal noqo anaa gurigiinii ku geynayey oo anaa gurigiinii kusoo dhigi doonee maxay ahayd kaalay raac alaabta gurigeygii ila gee alaabtii markan gaariga kasoo rog gaarigu uu culus yahay anaa ku qaadi doonaa marka xaafadaha uu u sheegay inay gartay baan malaynaya sababtu tahay xaafado fari rafo wadooyin fiican aan lahayn buu sheegay inantii markaa inankii way qaatay guri bay markaa geysay guri waxay geysay aanay cidina jooginba guri albaab ay hataa iyadu iska furaysay geysay albaabkii bay iska furtay ina gaarigii bay xaraysay maxay ahayd gurigii markay gashay alaabtii buu la rogay wax walba qol fadhiyo dee sidee loo kala garaacay inankii fadhiisay inankii ashqaraar bay ku dhacay ashqaraar guri saa loo goglayo saa u shidan maan arkinba inankii markaa dee fadhigu iska fadhiistay koob shaahoo waxaan ku dhaka jabiyaa loo keenay markay koobkii iyo guri qurux badan allah haye iyo jeeb xumaantayda haye inantii markaa sheekadu halkan ay ka qadhanaatay haddaba abaar ku dhac maanta waxaa ka baqanay tan markaa kuu sheego inay balonkaraysaa ka baqay xumaanteeda
waxaan والله program muujtay muu soo dhowraay ku soco استغفر الله العظيم inantii qolkii fadhigay ninkii shaha ku siisay miskiinkii yaraa شهوة سيسا inankani haye dee waxaanoo dalacayo waxaanoo maad aragtay dee raxlayna weligii looma samayn lama arag haye maxay ahayd waxa dhacday markaa in inantii inankii inantii intay shaawarka qabatay soo maydhatay soo maydhatay wallahi maxaa tuwaal isku soo duubtay dhalinyartay nagu badan tahay dhalinyartaa nagu badanay singalka ay nagu may anigu dushasaa uga marinay dee aniga waxba detail aniga wax detail lama sheegin wixii saa unba dusha uga marinaya inantii intay hoostaba noo geeyo may ku soco aradan asxaabta meesha saaro wa salaamaya maanta inaan salaamo wani loobaan umalaynaya aad iyo aad haye kadibna tuwaal intay saa iskugu soo duubtay bay dee inankii u timid haye bismillah dee waxaan ku uri wuxuu yidhi dee wadnahaa go-ay dee bisinka inanka wadnahaa go-ay dee waqti ku fikira inantii may siin yaa helaba de yaa helaba waa janise haye dee gaari cad jidh cad samadaasu inantii ku cunay dee samadaasu isku googooste samadaas ayaa waxa dhacday inankii inankii waxaa ku dhacay marka dharkiisii iska soo xidhay haye wuxuu yidhi iskaga baxday walaalo caadi maan lay maqlayn igadaa sheeka kufsiganoo hay wala maydaan maqlayn si fiican maydaan maqlayn haddaan ku maqlaya hay sheekadaa kufsan walaala ku soco haye mayma kufsanay kadibna waxa ku dhacday gaarigii bay inantii lasoo hafuushay way soo qaxaysay suuqa markii lagu soo dhowaa ayay inankii ku jirta waxay ku tiri waxa haya xanuun baan qabaa HIV AIDS baan qabaa lacagtaan kuu dhiibay isku baadh haddii aad positive noqoto oo dee marka horeba aidisku kuguma soo boodaya magaranaysa HIV baa marka hore lagaa helayaa dee dhowr cishana dee weliba waad sugaysa haddaad marka ugu horta marka saa iskaga soo baadho marka aduu lacag yaroo xogaayo gacan qabsiya u dhibtid bismillaahi raxmaan raxiim farta soo taaga inta wiila halkaasi hawshaa geli lahayd bismillaahi anaaba ku riyooday xalayo ka baqaaya maxaa inankii markaa dee inankii dee waxa ku dhac wadnaha go-ay dee bal adigu sawiro dee qof dhan oo caafimaad qabay dantiisa yara dee iskaba dan yaraadee caafimaadkiisa boqolu ahaaba inaad wallaahi baanay muniitayn nabadga ka dhaqaaqdeen wallaahi gaariga ku qalbi laba quri waxay testeerinka dhasho isla dhimane war inankii talaa ku baahday waxaanoo dhan wax si kedisaa ugu dhacay bay inankii noqdeen taladii baa ka samey lacagtii ka qabsan kari waa jeebkii u gelisay gaarigii way dhaqaajis nambarkii gaariga ma garanayo laakiin ID card ay leedahay oo gaariga saarnaa driving licensekeedii iyo xaday buugi yaraaye driving license ayuu dee maya arkay uu akhristay uu sawiraan ka qaatay uu dee magacii familiga marka familiga inantu ka dhalatay waa family magac weyn Soomaalina meel kastoo degantay waa istaqaanaa ama waa hadda xataa lagu maanta aan ku garan waayo oday ku gartay ama islaam ku gartay ma waaye markan magacaaga saddexan sheego cid luu kaligii istaagay waxna waa u sheegtay xun inankii markuu lacagtii eegay waxay siisay lacag $200 dhakhtarkii buu ku cararay xataa ku tegey arrinkiisii buu nin dhakhtara u sheegtay dadka Soomaalidana waad iska taqaanaa ayoo dhakhtarku markaad sirta u sheeganayso wuxuu rabaa inuu bulshada dhexdeeda kaaga qorto marka nin dee iska soconaya dhakhtarka dhexdiisu dee arrinkiisii u sheegtay yaa maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi ninkii dhakhtarkii dee si wanaagsan lamu hadlinoo isagii baa sasayba dhakhtarka xanuun maxaya bismillah marka adigu qaybtii ku shaqul lahayd xanuunkan uu ka hadlayeen ayuu u tilmaamay
dee markii uu arrinkii bilaabay uu arrinkii galay uu dhakhaatiirtii la hadlay dhakhaatiirtii dee waxay ku yidhahdeen كمان كان أخري صار كيا كمان كان أخري صار كمان قرب يا ninkaasi wuu iga qosliyaa maalin kasta wallaahi aad baan ku salaamay شلون markaa كان waxaa بلاي dhacday meeshii markuu tegey dee waxay kula waa la baaday waxa lagu yiri dee dhowr cisho kadibna soo noqonayo هاي دول بدو قلنا baadhid baadhid kalaa lagugu celinaya waa lagu baarayaa mar kale هاي adigu baadhistii bay ka qaadeen dee inankii waali iyo miirqab inuu jaamacad dhigan jiray inuu wixiiba dee u iloobo teele waata loo sheegay عافمد كيسا ما قلي adigu muddo wiiga inankii markuu hawshii ku daba jiray buu inankii muddo wiiga ana hawshii daba socday waa laygu yiri positive fatiniyo خبر قوي positive fatiniyo ma wiig bay ahayd ma bilay ahayd adigu muddo waxoogaa ayaa buu inankii igu yiri markii muddo dee adigu muddada lagu eego waxaan lagu helo dee ilaahu naga ilaali islaamkana ilaahu ka hay ha adigu wuxuu yiri inankii jaamacaddii inuu kusoo noqdo wuu diiday marka inankani wuxuu yiri markaan inankii la hadlay inankii wuxuu yiri hawl culus baa igu dhacday hawshaana intan soo maaragtay dee gunta ka soo gaarayo waxa weeyaan dee walaal jaamacaddii kuma soo noqon karo walaal jaamacaddii dad islaama tihiin jaamacaddii dee inaan isku xidhaan isku dayayay la xidha inankii markaa adigu muddadii ay ku qaadatay markay ku qaadatay inankii wuxuu noqday HIV positive baa u naxariisto kinin bay iska qaataanoo dee maad aragtay dee dadka qaarna dee sidaan inankanoo kale noqdaanoo dee way ku dawaqaan dee bahalka isagu wuxuu noqday markaa dadkii ku dawaqay inankuu isbedelay jaamacaddii buu soo galay inankaasu markaa la ballamay aniga managerkay ahaa buu la ballamay meel bay isku raaceen meeshii xafiiskii baa la tegey jaamacaddii way ku guulaysteen inay u xidhaan oo dee xal adduunyada xataa haddii ilaahay dee mar kale uu ilaahay fursad kala siiyo inuu dee jaamacaddii kusoo noqon karo uu dee wax baran karo inankii markaa adigu qisadii weli cidna ugama sheekaynayo laakiin dee inay dhibaata hayso oo uu buko oo dadku way dareemayaan waa la wada arkay inankii markaa inankan buu la sheekaystay inankan buu qisada markaa inta hore ilaa laakiin aad sakin qalbi adkeedayniyo ninka sida u sheegtay bismillaahi raxmaani raxiim haye awayga yaabis bismillaahi raxmaani raxiim inankii markaa inanka qisada markuu inta hore uga sheekeeyey ayuu ku urniyow kalaaskii iyo ardaydeeni baan kugu noqon lacag baa laguu soo ururin haddaad xanuunsanaysa dee xanuunkana allah keena khaladna waad gashay oo dee ilaahay baad qalad weyn ka gashay oo dee sinad ku dhacday marka wuxuu ku yiri saaxiib lacag baan kuu soo ururina dawooyinka iska iibso dawooyinku free weeyaanba laakiin dee naftaada ilaasho waxaana dadka u sheegin dadka dad waxaan u sheegto dee way kugu maad aragtay dad garanay ha waa lagu faquuqaya buu ku leeyahay dadkana waxaan u sheegay wuxuu leeyahay inankii anigii baa ka baqay ninkii ilaa ninka si xun baa waxaan loogu dhiibay inuu anigana bal igu dhiibaan ka baqo waxa niyadan u dajiyo waxaan ku niyo ardaydeena wax bay ku soo ururinayaan dawooyinkana free hay'adaha bixiye iska cun dawooyinkaaga dee intuu alla dilaa dhintee intood dhimanayso ilaahay dee u toobad celi aduu inankii inuu arrinkii inaan iga qaatay uma eekayn laakiin dee inuu dawooyinkiisi qaato markaa meeshii dhakhtar baan isku raaca ayaan u kaxeeyey buuri waan qaaday inankii dhakhtarkii hortiisaan dhigay aniga laftarkaygu meeshan laygu sawiro waan ka baqaya ilan waxaana nin mustaqbal iyo wax kasta rabo anu waxaan isleeyahay bilan waxaan lagugu shaambadaya oo la yidhaha qaybtaas u joogo xanuunkaas buu kanba qabaa waxaan ku yiri meeshan kugu sii sugayaa adigu wuxuu yiri dee bacdan oo buuxdo dawaa ninkii lagu soo rarayo sida loo qaadanayna waa loo soo sheego adigu dawooyinkii inuu qaadanayo dawuu eekaayo waa kan dee jawaan soo rartay dawaa ta waxa lagu yiri dawooyinka dad qaadato dee kolay dee maad aragtay xanuunku dee kulama dee xanuunku aad jirkaaga uma baabiinayo oo kolay dawooyinkaasaa dee ku caawin maad aragtay lifetime noloshaaduna dee way qofka dawada qaata uu ka nolol dheer yahay dee inkastoo alla dila dadka qofka hadduu dawooyinka qaadan waayo dee xanuunka jarjaraba biig la marka waxaa dhacday in inankii dawooyinkiis ka soo qaatay wuxuu yidhi maxay ahayd nin markaa meesha macalinka ahaa oo aad uga nixi jiray xaaladiisa oon arrinkan laakiin ogeyn ayaa meel uu
wax macdar lahaa ayaa ku yidhi maxay hayday jaamacadana iska dhigo macdarkaygana ka shaqee shaquu helay ninkii marka macdada meelaha gabadhida lagu iibiyo inankii markaa shaqadii markuu helay dee already jaamacaddii dhowr semester buu adigu wuxuu ka hadhay adigu sanad buu ka hadhay inamadii kale way qalinjabiyeen inamadii kale markay qalinjabiyeen ninkii markaa hoos ahaan buu u baarayaa inanta faamiligeedii inantu ciday la dhalatay inantu xaggay dee eeg maxay gashaa maxay guddaa naagtu waayo ayuu dee baaraya ninkii markaa wuxuu ogaaday gabadhani inay horta isagu inaanu ahayn ninkii ugu horreeyey ee dhibaatadan ku samaysa gabadha labada weyne wuxuu ogaaday gabadhani inay ku jirto dee last stageskeedii dee xanuunku in badan hayay deeyada wuxuu soo ogaaday dad inay la dhalatay hablo inay la dhalatay ayuu soo ogaaday hablihii ay la dhalatay ayuu ogaaday cidday yihiin sawiradoodii wax walba hablihii inantaa ku soo xigtay igu odhan munitabu ku noqday hablihiibu ku noqday miskiin inantaa ku xigtay oo uu dee maad aragtay baaritaanku isagu sameeyey dee inan caafimaad qabta ayaa jaamacaddii soo gashay jaamacaddii markaa jaamacaddiibu ku noqda isagu markaa jaamacadda waa second year inantuna waa fresh year freshkana jaamacadahoo dhan waa laga xaraabaystaa waa lagu qusquslaa marka meelaha marayaan inantiibaa markaa maalintaasoo kale inantiibuu saaxiibkay difaacay isagoo inama ka xaraabaysanaya inantiibaa laysbartay inantii markii laysbartay inantii markaa ninkani wuxuu isleeyahay halkay marisay haddaad mariso dee naagta way wada dhasheenoo kolley way is og yihiine way ku fahmi markaa wuxuu maskaxdiisa ku diyaariyey fikir kale ama si kale oo uu ninka gabadha uga aargoosto markaa wuxuu sameeyey markaa ninkan macalinka ee macdarka iskale macalinnimadii buu iska joojiyey macdarkiisii marna Dubai u tagaa barna ka soo noqdaan ninkuna dee wuxuu ahaa nin maad aragtay maxay ahayd mas-uuladii ninkan yaree xanuunka ku dhacay ninkan macalinku wuu iska aaminayday waxa markaa dhacday inantiibuu waqti ku bixiyey mushaharkiisa yarba gaari yarbuu ku karaystaa isagoo dhiida saa uga xidhan buu inanta u tagaa inantii way ishukaansadeen nambaradii baa la kala qortay sheekadoodii baa iskugu dhacday inantii markaa waxa dhacday inantii markay in muddo a wada sheekaysanayeen ninkan imika de xanuunku imisuu hayaa xanuunku nearly 2 years buu hayaa marka intaasoo dhan buu samriyey maaha inantanna muddo 6 bilood ilaa 8 bilood uu la sheekaysanayay oo inuu laga shakiyuu diidan yahay inantii markuu la sheekaystay uu maad aragtay sidee boqornimo oonu inantaa farihiisa aanan saarin oo markaan u tago kudha waan weyse qabaa iyaduna inan sidaasoo kale oo dhowrsoon ay tahay oon iska hubinayo mar walba inaanay gabadhanna dee aanay positive ahayn waayo anugu inaan aargoostaan rabay haddaan rabay inaan aargoostana gabadh xanuunkiiba qabta waxaase aargoosii maaha aniga waxaan rabaa inaan dareensiiyo xanuunkay dareensiisay iyosay noloshayda iga ciyaartay inaan dee ka aargoosto wuxuu yidhi dee cidna arrinkan ugamaan sheekayn qof ila taliya oo igu idhahda nin waxaan iska daa waxaan wax fiican maaha oo ilaahay u noqo ilaahay baaba kaa daweyn kara waxaan ma aan helin dee maadaama oon sheekadaydii aan qarsanayo inankii markaa wuxuu yidhi inantii markaa nin muddaa isla sheekaysanayna baan inantii ku yidhi uun kusoo doonanaya aanan weli farsaarin wuxuu yidhi ninkii aan u shaqaynaybaa ayaa guri dhisanayay gurigii markuu dhisanayay gabadhiisu u dhisaya guriga marka gabadhiisii guri u dhisay gurigii hawshii oo dhan buu igu soo wareejiyey wuxuu igu yidhi korka maad aragtay ka ogow arrinkaa guriga gabadha markaa loo dhisaye ninkana qabaa ma ogeyn guri loo dhisayo gabadhiisa surprise buu ugu dhisayaa wuxuu ku yidhi gabadhaydu maad aragtay hurdo iyo cunto iyo wax kastoo ay maalmo jeclaatay igu odhan jirtay ii soo iibi ayuu sawiradooda u diray wuxuu ku yidhi gurigaa gogolo gurigaa dhammaystir lacagna uu dhiibay wuxuu ku yidhi lacagtiina wakaa nacam ninkaasi siduu ninkaa u aaminay ninkii gurigii wuu camiray gurigi waa la dhismii baa dhammaaday habluu geeyey waa la maydhay waa la hagaajiyey gurigii daahiyadii gurigi waa la kala garaacay waa la habeeyey gurigan isagu mishan buu rabaa inuu ku fushadadii ninkiina waa kan maqan inantiibuu ku yidhi reerkii nimankaa soo doonanayaa nin wuxuu yidhi
ma aragtay kuwan masaakiinta ee suuqa iska jooga ma aragtay mijinta jaadka haddii loo dhiibay la yiraahdo sida ayga u cimaantaba ku ciya ayaan soo qabsaday ها jaad baan u qaaday أنا قار ما أركي مونيتار تشكله لما قار كل عرتها وكم حكمات هو دارتها كوا aniguna waan arkay weliya bile qaar maxkamadaha lagu odhan inta horteeda laga qabsado ii dhaaro waxaa tirahdaa anaaba indhahaasaa ugu hayay iyo waa kaas lacagtaasaan ku siinaya هاي warnima adu mid miskiinoo daydayu dariiqa kasoo qabsada wuxuu ku uri su-aalnahay weydiin waxna hayga waraysan arriman waxbaan warqada kugu qoriya waxaasaad waalidkaa igu odhanaysa هاي dabadeedna kuma aqaanis ma naqaani dariiqaaga mar dariiqa $100 ku dhiibay هاي marka ninku waa nin yaroo dee nuucobi weyno weeyaanoo wuxuu ku uri odaygaa garaac waxaad odhanaysaa ina hebel baan ahay maxay hayday inantaada heblaaye hebel ayaan kaa doonayaa ballan inoo qabo aan isku baran هاي waayahay ninkii buu garaacay odayga markaa already dee inantaaba usii sheegtay islaanta waa inuu odaygu ogii in lala soo hadlayo dee inaan laga soo doonin هاي odaygii buu la hadlay ku yiri waa saas dee wuxuu ku yiri maasha allah waa si wanaagsan ballan bay qabsadeen marka odaygu markaa wuxuu yiri hawl baan yara leeyahay waan yara mashquulayaa 2 wiig kadib ayaynu is arkaynaa 2 wiig kadib hudheelkaa hebel baan ku ballamayna هاي waayahay ninkii markaa ilan waxaan oo dhanba waa wax bug oo wax balaayo oon jiri weeyaan ila reer soo doonayaana ma jiraan reerku xataa sheeganaya waa reer khalade maxay ahayd 2 wiig buu haystaa inuu mishankuu rabay inuu ku gaaro هاي adigu inantii buu dee gurigii tustusay hablahana balaayaal ku tiri wax soo daawada moogta wuxuu ku yiri markaa guri baan dhistay maan doonaynin markaa inaan marka hore may waxa dhacday inuu isagoo gabadh telefoonka kala hadlaya gabadhii dee hawshan guriga surprise loo sameeyay walaasheed oo iyadu hawsha kula jirta inaan ka de labadoodaas mas'uul oo kasii dhigay inay guriga dhamaystiraan ay habeen inankiyo telefoonkii kala hadlaya oo iyadana ka yara fogaanayo isla ku maqlino laakiin waa la wada joogaa ayay dee faduul baa dumarka ku jirta ay faduul qaadaan secretary gurigan muxuu ahaa adigala gurigan markaasuu ku waa guri ma doonayn inaan kuu sheego waa surprise may waad ku tiraan anigu adeer waxaan surprise waxaan ma jeceliye ii sheeg dee wuxuu ku yiri markaan maanta ku soo hooyo marka maanta ku arooso caawan ku hoynaya oo kale marka wax walba oo diyaarsaday waa wax walba diyaarsaday oo si macquul u tahay anigu maana waxba soo doortaybo wuxuu ku yiri aniga dookhayga iyo dookhaagu ma isku mid ahayn ha fursad baan helay fursadii baan ka faa'iideystay waxa weeyaan wax walba maxay hayd waa diyaar gabadhii lagu yiri marka gurigii lagugu hoynayay baaba diyaara inantuna ay gabadha ay aad uga yartoo qof farasha jaamacada tahay daadeeda waan iska garanaa 20 way soo wada gooday si fiican bay guri baaba loo tusay hadii la yiraahdo dumarka uu guursanay soo wada goob macalawada guriga lagu daray inankii markaa wuxuu ku sameeyay inantii wuxuu iska dhigay inaanu rabin isagu inay u raacdo guriga boos buu ku qabtay wuxuu ku yiri xalaalna isku manihi ismana qabno aabahana waa ka waqtiga dheer qabsaday 2 wiig dee walaalay anigu maxay hayday ma doonayna inaan waxay kala gaaraan anagoon isqabine maxay hayday dee sideeni hore isku kulmaynaa wuxuu dhinantii gurigii bay guureeris gurigii soots gurigii baan doonayna soo gurigii baan rabaa waaba halku rabaysa wuxuu habeenada kamid markii hawshii week kaarsan week 1 week ay hawshii kaarsan ayaan ka aqbalay inaan gurigii inantii soots waana habeenkii mishanka waxaan inantii markaa hablaha qaarna waa habla sheekaysto walaalo ahoo is ogo dee inantani hadday sheekadan ogaan lahayd tan hore weyni dee adeer waxaan way ka shaki lahayd ma garanaysaa laakiin inanta ilmaha waa qof aamusan oo dadka hablaha u warramo maaha waxaan waa wax isugu beegbeegmaysa gara
inantii markaa waxa ku dhacday inantii way soo labistay soo kala garaacday habeenkii baa la ballamay may habeen lama ballamina siduu iyada u dareensiiyo kalsooni yaa maalin cadday wuxuu markiisa ku yiri goostay maalin cadeey ayaa ka waran haye alla waxay si fiican bay inantu gunta uga soo wada goodo waxay istirday ninkan waaba nin boqora ninka adiga ku baqaya intaas oo dhan dee waa si wanaagsan bay ku tiri maalin cadaydaas baa anigana ii fudude maalin cadaydaas u keenkeen inanku dee markaa waa multitasker dhinac jaamacaddii buu kaga jiraa dhinac waa kan ka shaqaynaya dhinac waa kan iyada ka doonaya dee inantu inankiisu fiican bay u jeclaatay haye gurigii baa la tegay oo gurigii bay ashqaraartay ilan guriga nin macdar lahoo dee taajira dee gabadhiisa u habaynaya guriga dee guriga wax walba hilib dad noolun baa ka dhima way yaabtay guriga albaabka marka laga soo galo ilaa marka laga baxayo dee waa siduu u goglan yahay waa inantu waa ashqaraartay way yaabtay way iska fadhiisteen halkii bay iska joogeen maxay ahayd sabab reason buu dee ilaahay qur-aankiisa ugu sheegay inaanay dee nin iyo gabadh kale ajaanibi aanay dee isku midoobin shaydaan baa ku midooba wuu iska habaystayba hawshoodii bay u dhamaatayba hadal bay igu tiri buu yidhi hadalka igu tirina wuxuu ahaa maadaama oo waa iska caadi maxaa iska caadiga kuuro markaasay tiri dee soo way kadib ima guursanaysid wuxuu yidhi si way yaranahay laakiin buu yidhi nin abaaday baan sida kala ahay buurtay oo waxaan mishankan intaasoo sano qaatay iyo intaasoo dhan aan diyaarinayay nin dee hadalkaa yaray tiri ku burburinaya ma ahayn buur intaanan hawsha dhamayn hawsha waa dhamaystay hawshii markaa dhamaystay hawshii dhammaatay waxa weeye nantii waan soo qaaday halkii ay i dhigtay way fogeed buur way ka fogeed xataa meeshay rabto inay iska baadhiyo waxaas waa u dhaweeyey wuraanu markaa maxarad kale maad aragtay intaasoo dee i aaminay anigoon xataa aabbahay tusiniyo reerkayagii i aaminay isaga horta suxur iyo saxartoona ma sii yeelaya gaadhigiisana fadlan kaxee waa kaas lacagtaas uu jiibtay lacagtaana fadlan u gee ninkana uu aaminsanyay markaa aniga managerka aniguna caawadaasan dhaqaaqaya inantii markaa inantii walaasheed bay wacday marka walaasheed gaari bay wadataa maaha gaarigii ragga kusoo kulugeyso heblaaye markay wacday ay ku tiri soo carar ninkiisaasuu igu iri way fahantay marka heblaayoy balade qabtaa ilana kii koowaad maahee waa kii boqolaade maxaad ka garan kaad kuu yahay kaas inantiina dee xanuunkii wuu ku dhacay iyadana markaa tii weyneyd baa horgeeriyootay oo dee inanku markaa intuu dee sii socday oo dhan dee maad aragtay facebookiisu kale naagtii baa markaa naagti dee markay gabadhni sawiraan baa la wada galgalay everything sawiraantii wax kasta way aragtay waa kii ugu dambeeyey ay dee la googooday inantii yarayd naxdintii bay iyaduna geeriyootay allah u naxariisto tii weyneydna way dhimatay dee wixiiba way dhinteen maanta isagina uu dhintay allah u naxariisto isaga saxaruu ku dhintay tahriibkii isagoo meeshii gaarin buu dhintay markaa dhammaantood allah u naxariisto sheekadan waxaan uga sheekeynay inaad ku cimro qaadataan rag iyo dumarba wax laytal khadar dariiqa saa u marmarayo fiicanoo jira adeer ma jiraan markaa waxaaga hayso waxaaga adeer qafilo surwaal oo markaad isguursanaysana isbaara oo maskixiyan isku baadho jismiyan isku baadha markaa wallaahi inan baa halkaa kasoo qoslaysay hayaa isku filan waxa laayo qosalma yaalo walaale ilaahay u naxariisto